soo dhawaad saaxiibayaal aniga habeen ay tahay habeen wanaagsan wad sheekada haye adiga haday ay ku tahay maalin wanaagsan aad u mahadsantiin maxaan ka hadli doonaa maanta waxaan ka hadli doonaa wax muhiim ah oo faa'iido badan leh wadanka faa'iido u leh macnaha shaqo abuur ah faa'iidana adiga aad ka helaysid wallahi waa ganacsadaha waxaas maxay yihiin waa mashiinkan ku muuqda oo jeedin mashiinkan wuxuu sameeyaa caanaha aad taqaano ee powderka loo yaqaano ama budada ah caanaha mar walba caruurteena la siiyo oo dadka ay cabaan ee gaseecaysan ama bacaha ku jiro waad garanaysaa inaan ku sheego muhiim ma ahan laakiin caanahaas ayuu sameeyaa mashiinkan ama makiinadan aad u jeedid qiimaheedana way kala duwan tahay noocan hadda ku muuqata sawirkeeda waa $8,000 laakiin faa'iidada laga helayo ayaa ka badan caanihii lo'da la soo lisayaa kadibna waxay ka dhigaysaa budo marka waxay noqonaysaa macnaha inaad noqoto qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka furay warshad samayso caanaha taas magac waa ku noqonaa faa'iido badan ku helaysaa dad badan oo walaalahaaga muslimiin Soomaali ahna shaqo waa ka siinaysaa xaqiiq waxa ah in macnaha faa'iido laga helayo hadhow hadaa shirkadaas adiga wadanka keentana oo aad canshuur bixisana wadanka markaas dawladda ka jirto waxa ku leeshin kartaa in caano kale aysan soo gelinba macnaha $100,000 ama $8,000 qof walba heli kara laakiin meeshii lagu bixi lahay lama hayo Allah amaana rasuul marka mashiinkan aad u jeedid horena aan ku tuso haddana ku muuqdo sidaas aan ku soo sheegay ayuu sameeynaya lacagtiis waa ku sheegay wixii garab iyo caawinaad u baahan tahayna waa iga helaysaa waxaan filayaa inaadan u baahnayn garab mashiinkana waxa laga helaa Hindiya iyo China waa dad fakiray waa dad bini aadan caadiya oh my god wow dagaal bilay ku dhasheen macnaha ma ahan dad cir ka soo dhacay laakiin waa dad fakiray oo macnaha tashtay oo maskaxdooda inta ka shaqeeyeen soo saaray marka mashiinkan hadda aan ku sheegay iyo mashiino badan aan ku soo wadaa qiimahoodana waa ku sheegi doonaa insha Allah ila soco waa ku maadsan tahay wixii aan qalday waa aniga xaggayga wixii aan saxana waa Allah subhanahu wa ta'ala xagiisa waad ku maadsan tahay daawashada waa anigoo ah Axmed Deeq Salaad oo kule mar labaad iyo mar saddexaad waa ku maadsan tahay daawashada. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi تعالى وبركاته.